maanta waxaan doonaynaa inaan sharaxno filin sheeko cilmiyeed Jabaan ah oo lagu magac daray AI Amok si degan u daawo oo is-ilaali. Kasooka Kiryu waa saynisyahan maskax badan oo u dhashay Jabaan kaasoo horumariyay AI oo loo yaqaano rajo ama hope. AI-du waxay u taagan tahay Artificial Intelligence. Waxaan isticmaali doonaa inta filinka ku guda jirno ayada ujeedadiisu ugu weyn ay ahayd arrimo caafimaad. Dhammaan dadaalku waxa uu galay daaweynta kansarka xaaskiisa. Haddii farsamadan tiknoolajiyadan ay dawladdu u ogolaato in loo isticmaalo qaybta caafimaadka, ma badbaadinayso kaliya nolosha xaaskiisa keliyata, laakiin waxay noqon doontaa tallaabo hal abuur u ah horumarka aadanaha. Bilowga filinka, Kiryu wuxuu ku jiraa shaybaadhka shaqadiisa markii seedigiis Satoru Nishiro uu la yimid waraaqadihii arjiga, taasoo sheegay inay dawladdu diiday inay taageerto isticmaalka AI-ga ama Artificial Intelligence-ga sababtoo ah maqnaanshaha sharciyada la xiriira arrintan. Muuqaalka xiga, Kiryu xaaskiisa iyo Satoru waxay ku sugan yihiin xeebta iyo gabar uu dhalay taasoo lagu magacaabo Kiryu Kokoro. Xaaskiisa ayaa ku jirta marxaladii ugu dambeysay ee kansarka, waxayna u baahan tahay gargaar degdeg ah oo AI ah ama Artificial Intelligence ah. Inkastoo Kiryu uu hindisay AI-ga, isaga iyo xaaskiisa ayaa diiday inay si sharci dara u isticmaalaan iyadoo amar sax ah loo haysan isticmaalkeeda. Qoyska ayaa sawir wadajir ku galiyay xeebta. Maalmo kadib waxaan aragnaa xaaska Kiryu oo dul jiifta sariirta geerida ayaa geeriyootay kadib markii ay sheegtay inay rajeynayso inuu AI-gu maalin maalmaha ka mid ah uu farxad gelin doono nolosha dad badan. Haddii la ansixin lahaana hal abuurkan, Kiryu waxa uu u badbaadin karay xaaskiisa. Sanad kadib dhimashada xaaskiisa, nidaamka caafimaad ee AI-ga ayaa dawladdu ansixisay isticmaalkiisa iyo in dhammaan dadka la gaarsiiyo waqti aan dheerayn. Kadib ayaa la bilaabay in la isticmaalo wax kasta oo ka mid ah nolosha sida sharciga, maaliyadda, madadaalada iyo tan ugu muhiimsan oo ah caafimaadka, sababtoo ah tiknoolajiyadu waxay daweyn kartaa cudurro dhowr ah. Dhowr sano kadib, guusha Kiryu ayaa si weyn loogu xusay laguna badbaadiyay adduunka oo dhan. Seedigiisa Satoru wuxuu noqday madaxweynaha rajada ama Hope the President, maamulayana guud ahaan. Kadib markuu Kiryu fuliyay rajadii xaaskiisa markii ay sii dhimanaysay, Kiryu ma rabo inuu ku sii noolaado Jabaan, sidaa daraaddeed isaga iyo inantiisu waxay u guureen Singapore. Caanimada rajada ama caanimada AI-ga ayaa kor u kacday kadib markii saacad daryeelaysa caafimaadka qofka la hindisay. Hadda dadku uma baahna inay tagaan dhakhtarka si loo ogaado dhibaatooyinka caafimaad ee haysta sida burooyinka maskaxda, kansarka. Ma jirto qof aan rabin inay saacadooda u sheegto inay qabaan burada maskaxda iyo in kale. Inkastoo adduunka intiisa badan lagu dabaaldegay hal abuurkan cusub, waxaa jira dadka qaar oo aaminsan inay tani sababi doonto dhibaatada shaqo la'aanta oo kor u kacda si aad ah. Dad badan ayaa ka soo horjeestay rajada, laakiin waxay noqotay mid laga maarmaan u ah nolosha. Inta badan muwaadiniinta Jabaan bilowgii 2013 Kiryu iyo Kokoro waxay ku nool yihiin guri xeeb ah oo ku yaala Singapore. Si kastaba ha ahaatee, Kokoro ayaa tabtay hooyadeed si aada, waxayna rabtay inay dib ugu laabato Jabaan maalin maalmaha ka mid ah. Waxayna heleen fariin ka timid Satoru oo sheegaysa in madaxweynaha Jabaan uu doonayo inuu abaalmariyo waxqabadkii uu sameeyay Kokoro. Isagoo ka faa'iideysanaya fursaddan, aabbihii iyo inantiisa ayaa dib ugu duulay Jabaan. Waxayna la yaabeen inay arkaan dibadbaxyaal badan oo ugu hor yimid bannaanka xarunta rajada. Waxaana lagu soo dhaweeyay xarunta rajada Satoru iyo guud ahaan shaqaalihii shirkadda iyadoo sacab iyo mashxarad lagu soo dhaweynayo. Waxaana lagu soo wareejiyay dhismaha xarunta. Waxay arkayaan qolka seerfarka halka wadnaha rajadu lagu hayo. Waa mashiin aad u weyn oo u adeega sida bartanka motherboard-ka. Xarunta seerfarkan ee rajada ayaa si adag loo sugayay sababtoo ah mashiinkan ayaa ku xiriirsan nolosha qof kasta oo rajada isticmaala. Daroniska security-ga jeegaraynaya kuwaasoo isticmaala aqoonsiga wejiga ayaa gartay Kokoro. Intaas kadib ayaa xaflad ballaaran loo qabtay soo dhaweyntii Kiryu, iyadoo lagu soo dhaweeyay inuu hadlo wax ku saabsan ikhtiraacisa. Intii uu shirka socday, mudaharaadyo waxay ku guuleysteen inay soo jebiyaan qasaanna Kiryu inta uu hadlayay. Waxaa la socotay in Kiryu uu la kulmay sarkaal boolis oo lagu magacaabo Sakuraba waxa uu ku dhibiyay Satoru si uu u ogolaado in waaxda bilayska ay u isticmaasho rajada si ay u jabsadaan xogta gaarka ee dadka oo ay xaliyaan dembiyada, maadaama ay noqon lahayd jebinta privacy-ga. Dadkana waa ay diideen codsigan. koox dabaaldegayaal ayaa xiray socodkiisii. Waxaa xigay wariye si cad uga soo horjeeday barnaamijka rajada ama AI-ga kaasoo ku andacoonaya inuu waraysi
la yeesho. Markaan Kiryu iyo Kokoro waxa ay saaran yihiin gaariga, gabadhii yareyd waxa ay dareentay inay weydii sawirka kaliya ee hooyadeed, waxayna ku soo carartay gudaha iyada iyo shaqaalihii si ay u raadiyaan, iyada oo Kiryu iyo gabadhii u kaxeeyeen shirweynihii uu ku gudoominayay madaxweynaha Kokoro, halka kuwii kalena waxay aadeen qolka seerfarka si ay u raadiyaan sawirkii lumay. Dhanka kale, dhowr isbitaal oo kala duwan oo Jabbaan ah ayaa si lama filaan u bilaabay inay cilidoobaan qalabkoodii, bukaanno badanna ayaa u dhintay dib u dhaca dartiis, iyadoo shaqaalaha caafimaadka ay argagaxsan yihiin iyagoo garan la sababta keentay arrinkan. Madaxweynaha ayaa isu diyaarinayay inuu jeediyo barnaamijka, laakiin si lama filaan ah ayay dhulka ugu dhacday. Waxaa soo baxday in gargaraaca wadnuhu uu isticmaalayay barnaamijkan, taasoo istaajisay wadnaheeda, waxaana loola cararay isbitaalka, balse ma aysan ku guulaysan. Nidaamka wadooyinka ee otomaatiga ayaa isticmaalayay rajada. Sidoo kale, ciladan ayaa keentay dhowr shil, iyadoo barnaamijka rajada uu istaagay. Guud ahaan, howlwadeennadii Suturu iyo injineerada xarunta waxaa lagu wargeliyey inay u cararaan qolka kontaroolka si ay u ogaadaan waxa khaldan programka. Kokoro keligeed ayaa looga tegayay qolka seerfarka sababtoo ah jebinta nidaamka amniga ayaa is-active gareeyay oo Kokoro ayaa ku xirmay qolkii. Warkii ayaa gaaray TV-ga. Kiryu wuxuu ogaaday in cilada jirta markii uu wacayay saydigiis. Sidoo kale aad ayaa u walwalsan yahay inuu arko Kokoro keligeed oo ku xiran qolka seerfarka, iyadoo waqtigu sii socdana uu sababayo inuu heerkulka qolku hoos ugu dhici doono eber si ay mashiinadu u qaboojiyaan. Shaqaaluhu waa inay soo saaraan ka hor inta aanay u dhiman qabowga. Programmerskii xarunta rajada ayaa inta ay shaqaynayaan ogaaday in ay dhacday arrin yaab leh. Looginka seerfarkana la ilaaliyo oo loo malaynayo inay ciladani keentay, taasoo in la hakargareeyay. Waxay soo heleen aagga uu ku sugan yahay qofka jabsaday, waxayna u soo direen goobtaas qalab yar oo kaamira ah oo u eg cayayaanka. Halka uu Kiryu ka walwalsan yahay inay ku xayiran yahay taraafiga, ayuu furay boorsadiisii wuxuuna ka helay tablet rakibayay fayraska barnaamijkii Hope. Isla markiina booliskii waa ay heleen, waxayna u xireen inuu yahay hakar ka galaaftay systemkii. Way caddahay inuu qof isku dayay inuu weji xumeeyo Kiryu, laakiin Kiryu ma haysto waddo uu ku caddeeyo. Kadib shil baabuur ayaa dhacay meel u dhow, taasoo khalkhal gelisay booliska, waxaana Kiryu u suurta gashay inuu baxsado. Dhammaan arrimahan oo dhan, wariyaha ayaa markii hore sawiradiisa ka qaadayay gaari gadaashiisa ah, iyadoo tuhmanuhu ka baxsanaya booliska. Sakuraba iyo kooxdiisa oo loo xilsaaray inay qabtaan isaga oo ka faa'iideysanaya fursadan. Sakuraba ayaa isticmaalay barnaamijka AI-ga rajada oo lagu raadinayo Kiryu, iyadoo oo aan la sugin wax fasax ah maadaama ay ciladi jirtay. Laba sargaal oo lagu magacaabo Kogot iyo Asano ayaa sidoo kale lagu soo daray kooxda si ay u caawiyaan. Ugu horreyntiiba, Kogot kuma dareemin wax deganaansho ah inuu arko Sakuraba oo ku tagrifalaya xogaha shakhsiga ee dadweynaha si ay u raadiyaan Kiryu, isagoo isticmaalaya kamaradaha CCTV-ga iyo xitaa kamaradaha telefoonka gacanta ee dadka. Sakuraba ayaa awood u helay inuu bartilmaameedsado halka uu joogo Kiryu. Isla markiiba Kiryu wuxuu ogaaday in la daawanayo, sidaa darteed wuxuu galay bulaacadii u dhoweyd, wuxuuna wacay Satoshi, wuxuuna u sheegay inuu qof isku dayay inuu muuq xumeeyo. Kadib wicitaankoodii ayaa la dabagalay. Hadda Sakuraba iyo kooxdu waxay maqli karaan iyaga oo hadlaya. Kiri waxa uu shaaca ka qaaday in markii ugu horreysay ee barnaamijkan rajada sameynayay ay ahayd inuu u adeego wanaagga dadka, uguna u adeego dadka inay ku raaxaystaan kuna qanacsanaadaan. Waxa uu aaminsanaa in sanadihii ugu dambeeyay qof uu programiyay rajada si ka duwan sidiisii. Taasna waa sababta uu u bilaabay inuu u shaqeeyo iskiis, wax amar ahna uusan ka qaadanayn bini'aadamka. AI-ga ayaa dhawaan ku samayn doona qiimeyn dhammaan muwaadiniinta Jabbaan, iyadoo uu turtiri doono nolosha kuwa u arka inaysan macno soo kordhinayn. Tanina waxay qaranka oo dhan gelinaysaa khatar inuu dilo dhammaantood AI-ga. Isla markaasna waxaynu aragnaa ilmo yar oo ku dhex jira gawaadhida yaryar ee ay maamulaan AI-gu, waxayna xisaabinaysaa
biilka guud ee caafimaadka, laga yaabo inuu ilmuhu bixiyo noloshiisa oo dhan, wuxuuna u soo baxayaa in ilmahan uusan u qalmin nolosha. waxaana xigtay inuu active gareeyay gaariga. ilmihii waxa uu ka soo dhacay jaranjarada si loo joojiyo dilka wadareedka socda. waa in program cusub lagu shaqaysiiyaa seerfarka. kadib markii wicitaankii dhammaaday, askarta ayaa soo aaday godkii, waxayna heleen Kiryu, wuxuuna jebinayay tabletkiisa si aan loo dabagelin. Sakuraba waxa uu la kulmay dhammaan xogtii ku saabsanayd meesha uu ku sugnaa. intaa kadib, Kiryu ayaa haddana mar kale u suurta gashay inuu ka baxsado. Goda iyo Asano ayaa ka soo baxay qolka controlka ee Sakuraba kadib markii ay maqleen in Kiryu la hadlay Satoshi. Goda wuxuu aaminsan yahay in Kiryu uu yahay mid waxba galabsanin. labadubana waxay ka fakarayaan aragtida Kiryu, waxayna isu waafaqeen inay booqdaan data centerka labaad ee programka Hope ee ku taala Sendai. dib ugu soo noqoshada headquarterka, qof kasta wuxuu isku dayayaa inuu ka soo saaro Kukuru qolka server roomka, laakiin waa ay ku guuldaraysteen. waxayna u jiiftay dhinac iyadoo cabsi iyo qabow isugu darsantay. Kiryu waxa uu fuulay markab asagoo isku qarinaya gawaarida xamuulka. sidoo kalena Goda iyo Asano ayaa sidoo kale la fuulay markabkii. Kiryu waxa uu haystay laptop uu soo xaday kaasoo wax ka programinayay. booliiskii ayaa ku raadinayay signalkiisa, waxayna heleen signalkiisa. saraakiisha markabka ka agdhowaa ayay wargelinayaan inay ka jeegareeyaan meel walba. kadib markii ay heleen, waa uu kaga orday dhanka sare ee markabka. Goda iyo Asano ayaa u sheegay inay isaga u joogaan inay caawiyaan, laakiin ka hor intuusan u jawaabin, nin shiisha ayaa diyaaradda helikabtarka kaga soo riday rasaas si uu naftiisa u badbaadiyo. Kiryu ayaa ku booday biyihii oo waa la waayay. in yar kadib ayuu indhaha soo kala qaaday, wuxuuna ishelay isagoo ag jooga doon xeebta agteeda. kalluumaysta deegaanka ayaa ka badbaadiyay biyaha badda, isagoo u sheegay inuu aad ugu mahadnaqayo barnaamijka rajada sababtoo waxa uu badbaadiyay nafta xaaskiisa. dhanka kale, mudaharaadyo badan oo loogu soo horjeedo barnaamijka rajada ayaa ka socda guud ahaan dalka. Kiryu ayay saxaafaddu ku tilmaamtay inuu yahay argagixiso gudaha Sendai. Kiryu waxa uu aaday jaamacadda laga guuray, taasoo ahayd meeshii ugu horeysay uu ku alifay rajada. isla markiina waxa uu ku biiray Satoshi, waxaana ka soo baxday markii ay ku wada hadleen taleefanka ugu dambeysay ee uu isticmaalay kelmadda code oo uu wacay, isagana halkaas aaday. Goda ayaa sidoo kale furfuray koodhka, wuxuuna u soo baxday dhankaas iyo jaamacadda, iyadoo si wada jira Kiryu iyo Satoshi u bilaabeen qorista programka si loo joojiyo burburka iyo xasuuqa ay keenayso barnaamijka rajada. kombiyuutarku wuxuu iskaan gareeyay muwaadin kasta oo Jabaaneys oo isticmaala AI-ga, wuxuuna qorsheynayaa inuu baabi'iyo si waafaqsan barnaamijkii hore. waxaa qaadan doontaa 6 saacadood oo kaliya in dilwadareedku bilaabmo. injineerada headquarterka rajada ayaa sidoo kale ogaaday xaaladan, waxa ayna bilaabeen inay wacaan qoysaskooda si ay uga codsadaan inay ka fogaadaan dhammaan qalabka AI-ga rajada. markan waxaad ogaanaysaa in aysan jirin cid jabsatay barnaamijka oo fayraskan yahay mid gacanta lagu geliyay wadnaha rajada, iyagoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ka helay xogtii wadnuhu. waxa ayna arkeen dhaqdhaqaaq ay ka shakiyeen, balse markii ay fiirsadeen muuqaalka CCTV-ga, Kiryu waa uu naxsan yahay, waxaana soo baxday in Satoshi yahay qofka geliyay fayraska. si kastaba ha ahaatee, Satoshi ayaa beeniyay sheekadaas, isagoo sheegay inuu sameynayay baaritaan joogto oo uusan garanayn waxa qaldamay. kadibna askartu waxay yimaadeen goobtii ay ku dhuumanayeen oo ay rasaas ku fureen. Kiryu si uu u badbaado, Satoshi ayaa isku dhigay xabadii lagu soo tuuray Kiryu. neeftiisii ugu dambeysay, sidigiis ayuu ka bariyay Kiryu inuu dadka badbaadiyo. Kiryu waxa u suurta gashay inuu mar kale baxsado, iyadoo ay daba galeen booliska. sidoo kale, Goda iyo Asna ayaa daba galay baabuurkii Kiryu. waxa uu ku dhacay meel dhowr mitir u jirta booliska. boolisku waxay hubiyeen inuu ku jiro, kadibna baabuurkii gaariga, laakiin ma ay helin meydkiisii. askarigii bileyska ee Sakuraba ayaa isticmaalay AI-ga iyo CCTV-ga si uu u raadiyo Kiryu, wuuna helay. laakiin markii ku soo gaareen boolisku goobta, qof kale ayuu ku noqday. kadibna waxaa la ogaaday in Kiryu uu cillad ku sameeyay nidaamka AI-ga ee booliska,
taasoo keentay inay ciladi ku timaado iyaga oo isku dayay inay raadiyaan. ayuu wuxuu ku guuleystay inuu dib ugu soo laabto headquarter-ka rajada oo uu kula kulmo madaxda injineerada isagoo doonaya inuu caawiyo joojinta xasuuqa ku dhow inuu dhaco. si kastaba ha ahaatee Sakuraba iyo kooxdiisu waxa ay si uun u sameeyeen xarunta oo ay ku hareeraysan yihiin. Kiryu ayaa u sheegay askarta inay dambiilaha dhabta uu yahay Sakuraba, kadibna waxa uu daaray muuqaal Satoshi ah oo fayraska ku shubaya wadnaha, waxaana soo baxday in si dhab ah uu u khiyaamo u geystay Sakuraba oo taagnaa bannaanka qolka serfarka markii ay dhacday. inkastoo la cadeeyay in Sakuraba uu keenay rajadii inay ku timaado cilada, haddana askartu waxay weli raacayaan amarkiisii. Sakuraba markaas ayaa sheegay in Japan ay u baahan tahay nidaam awood leh oo lagu xukumo adduunka, taasoo oo ay naga caawin karto. AI-ga wuxuu lahaan karaa awoodda adduunka oo dhan lagu maamuli karo. marka uu qiranayay dembiyadiisa oo dhan, qalab u duulaya sida cayayaanka oo kale ayaa diiwaan geliyay oo duubay sheekada dhex martay si toos ah. ayaa dunida oo dhan looga daawanayay xaqiiqda Sakuraba uusan arkin arrinka meesha ka soconayay, taasoo u noqotay amakaag. hadda qof walba waa uu garanayaa runta. gooda ayaa xiray Sakuraba oo ka kaxeeyay meeshii, halka Kiryu uu ku dabaaldegay siduu ku hagaajin lahaa barnaamijka rajada iyo sidoo kale u badbaadin lahaa gabadhiisa. wuxuu dib u borograamiyey koodkii, waxa uuna ka shaqaysiiyey wadnihii serfarka iyadoo ay caawinayso gabadhiisa Kokoro. wuxuuna dib u xasuustay maalmihii hore ee rajada iyo sababtii loo aasaasay. kadib albaabkii qolka serfarka ayaa dib u furmay. aabihii iyo inantiisa ayaa dib u midoobay, waxayna dib u shaqeeyay kombiyuutaradii, waxayna ku qaadatay muddo isbuuca in temperature-ku dib ugu soo laabto halkiisii hore.